si loo afduubo gaarigiisa waxaa lagu horjaray gaariga carruurta markii uu istaagay gaarigiisa waxaa gadaal looga dhuftay gaari ay wateen afduubayaasha kadibna waxa ay ku xareeyeen qaybta dambe gaarigii loogu talagalay afduubka ganacsade Hamish Martin Islaya muddo 43 maalmood ayaa la waayay waxaana lagu qariyay laba location midkood mid waa Eristad Liberal midna waa Brussels waa afduubkii ugu dheeraa abid ee taariikhda la diiwaan geliyo laakiin maxaa loo afduubay Islaya Islaya waa uu badbaaday ma waxa isleedahay nasiibkiisa ayaa badbaadiyay maya haddaba sidaas ma aha Islaya waxa uu badbaaday qorshe lagu fulin rabay afduubkiisa falkanina waxa ka dambeeyay rag military gaangiisa loona yaqaano Red Army Faction loona soo gaabiyay RAF kuwaas oo ujeedkooda ahaa soo deynta hogaamiyahooda Andres Bada iyo xubno kale oo muhiim ah Abriil 1977 General Sifqi Bobag oo ka tirsan ciidanka West Germany ayaa nafta la dhaafiyay waxa kale oo afduub loo geystay madaxa sare ee bangiga Dresdner Bank Jogan Bonto kadibna nafta ayaa la dhaafiyay 25 Agoosto 2 isbuuc ka hor inta aan la afduuban hantiila Islaya waxa ay kooxdu isku dayeen umaleegida qarax xoogan xarunta West Germany Borshkiyan operator taas oo qaraxa sidii la rabay aan loo hagaajin waana uu fashilmay Andres Bada dhagihiisa uma wanaagsaneen warkaas uu maqlay waxa uu ku kacay dil 4 qofood gudaha xabsiga halka 39 qof oo kale uu isku dayay inuu dilo balse uu ku fashilmay dawladda West Germany oo madaxda ka yahay Chancellor Helmut waxba kama soo qaadin dalabaadka RAF si muwaadiniintoodu ugu badbaadaan gudaha dalka mar haddii dalabaadkooda aan la fulin mar kale waxa ay bedeleen qorshahoodii ayagoo xiriir ka helay urur military oo xarun u ahayd dalka Falastiin loona soo gaabiyo Belbi miiska waxaa la soo saaray qorshe xiga si West Germany loogu cadaadiyo inay fuliyaan dalabkooda waa in la afduubaa diyaarad laga leeyahay West Germany rakaabkan uu noqdo maqaalinta lagu soo dabi lahaa dawladda oo ay gacanta ugu jiraan rag muhiim ah balbi hogaamiyahooda waxa uu diyaariyay rag ay ka qayb qaadan lahaa qorshaha afduubka 6 Oktoobar 1977 meel u jirta masaafo 1300 oo kiiloomitir caasimadda Cologne Balearic Island ee magaalada Mallorca waxaa soo gaaray Suhail Yusuf Akaje oo u dhashay dalka Falastiin waxa uuna ka soo degay airportka Palma de Mallorca asagoo degay Costa Azul oo ah hotel u dhow goobta maalinkii xigay 7 Oktoobar waxa goobta ku soo weheliyay laba qof oo dhalasho ahaan ka soo jeeda dalka Lubnaan waana Suhail Saye iyo Wabil Harbi isla maalinkaas goobta waxa ku sugnaa dalxiisayaal kuwaas oo magaalada booqasho u joogay wax walbana waxay u ekaayeen caadi Akaje iyo Suhail waxa ay la kulmeen nin iyo xaaskiisa ninka waxa uu ku dhoofayay baasaboor la soo xaday magac ahaanna wata Sarfati Kamal laakiin magaciisa saxda ah lama oga waxa hore loo soo qaaday gaariga ciyaalka oo ay ku jiraan 2 bistooladood 6 bombo iyo 500 oo gram oo ah walxaha qaraxa aan dib ugu laabano hotelka Costa Azul 8 Oktoobar qofkii ugu dambeeyay ee kooxda ayaa ku soo biiray waana Nadia Duwabis dhalashadeeduna tahay Falastiini waxa ay jecel la jilaysay Akaje si uu qorshaha u noqdo mid xoogan waxa qolalka loo kala bedelay Nadia iyo Suhail qorshahana waxa ay ku diyaariyeen Mallorca 13 Oktoobar 1977 maalin Talaado ah oo aad u qabow caasimadda Palma kooxdii waxa ay ka soo baxeen hotelka Costa Azul waxa ayna gaari u qaateen airportka oo u jiray 15 daqiiqo sidoo kale waxa ay wateen raadiyo iyo boorso caafimaad waxaana gudaha ugu jiray bistoolado rasaas iyo walxa qarxa qaybta baarista rakaabka waxa ay ku dhaafeen qaab fudud sababtoo ah ma soo gaarin casriga mashiinada sida iskood ah wax u baara taasna waxa ay ka saaciday inay qorshahooda u fududaado markani waa abaar 6 iyo 30 daqiiqo Akaje iyo kooxdiisa waxa ay soo raaceen Lufthansa Flight 181 diyaaradda waa ay kacdo waxayna u jiheysneed Frankfurt inta ay hawada ku jirtay Akaje iyo tiimkiisa waxay iska soo jareen bistoolado ayagoo rakaabka isku keenay qaybta hore ee economic classka kana aruuriyay wax walba oo khatar keeni kara iyo aqoonsiyadoodii dabadeedna waxay u galeen qaybta maamulka diyaaradda ayagoo soo qabtay caawiyaha Captain Schumann waxayna ku soo dareen rakaabka intiisa kale Schumann ayaa lagu qasbay inuu diyaaradda u leexiyo dhanka dalka Qubrus balse waxa uu u jeediyay in ay halkaas diyaaradda gaarin shidaalku aad u yar awgeed in lagu dejiyo diyaaradda caasimadda Roma si halkaas shidaal looga qaato saacaduna waa abaar 8 iyo qadar 38 daqiiqo ah raadeerku uu sokeeyay ayaa ka war helay in signal diyaarad laga leexiyay wadadii loo qoondeeyay airportka Roma oo aad u mashquulsanaa durbadiiba waxa raadeer soo gaaray message ka imaanaya diyaaradda waan hogaamiye Akaje madaxa afduubayaasha waxa uu sheegay
in maamulka diyaaradda markani ay gacantiisa ku jirto. abaar 9:45 daqiiqo ah diyaaradda 181 waxa ay soo caga dhigatay garoonka Fiumicino ee caasimadda Roma. ujeedkooda oo ahaa in diyaaradda shidaal loogu shubo waxa ay ku wargeliyeen taawarka garoonka laga maamulo, waxaana kaloo xigay in dalabkoodu ahaa in dowladda West Germany ay sii deysto maxaabiista ay xabsiga ku hayso. sirdoonka waxa uu ka warhelay in afduubkii Hamish Martin Schleyer iyo diyaaradda 181 ay tahay hal hadaf, kaas oo ah sii deynta maxaabiista laga haysto ururka RAF. intii diyaaradda shidaalka lagu shubayay, Captain Schumann waxa uu daaqada ka soo tuuray 4 xabo oo sigaar ah, taas oo ay sirdoonku macno badan ka qaateen. abaar 11:45 daqiiqo ah waxa ay diyaaraddu u jihaysatay dhanka dalka Qubrus. isku day ee ku caga dhiga rabtay garoonka Nicosia ma aysan u suura gelin, waxaana loo jiheeyay garoonka Larnaca ee koonfurta Nicosia. abaar 2:28 daqiiqo ah ayay soo caga dhigatay garoonka Larnaca. dowladda West Germany oo xalka ku adag yahay waxaa la gudboonaatay inay xiriir la sameyso ururka la dagaalanka burcadka ee loo soo gaabiyo GSG9. afduubayaasha waxa ay dalbadeen in mar kale diyaaradda loo buuxiyo iyo sii deynta maxaabiista West Germany laga haysto iyo 2 Falastiini ah oo dalka Turkiga ku xiran. Akaashe waxa laga codsaday sii deynta dumarka iyo carruurta, balse dalabkaas waxa uu ahaa mid la diiday. waxa xigay in mar kale qadka loo soo geliyay si uu ula hadlo nin la sheegay inuu yahay midowga u dhaqdhaqaaqa Falastiiniyiinta Qubrus, balse Akaashe oo ujeedkiisa weynaa ayaa ugu jawaabay, waxaa tahay waxba igama gelin, mana doonayo inaan kula hadlo. xilli ay garoonka fadhida diyaaradii afduubneed ee 181 abaaro 3:20 daqiiqo ah waxaa soo caga dhigatay diyaaradda 1231 oo ay saarnaayeen 30 ka tirsan ciidanka askarta GSG9. taawarka isgaarsiinta ayaa ka saacidi waayay wada hadalka labada dhinac, waxayna u dhaqaaqday dhankaas iyo Ankara. abaar 4:50 daqiiqo ah mar kale ayaa diyaaraddii cagaha laabatay, waxayna ku wajahneyd Beirut. ma aysan u suura gelin, waxayna sii martay Dimashq, Kuwait. intaasba ma ogolaan inay degto diyaaradda. safarka oo dheeraa abaar 1:32 daqiiqo ah waxay soo caga dhigatay garoonka Bahrain, waxayna ku sugnaayeen muddo 2 saacadood ah, waxayna gudbiyeen dalabkooda oo ahaa sii deynta maxaabiista RAF ee lagu haayo xabsiga West Germany. markani waxay kaloo soo raaciyeen haddii dalabkooda loo fulin waayo 9 subaxnimo maalinta Axadda ah oo ay taariikhdu tahay 16 Oktoobar inay diyaaradda 181 ay gebi ahaanba hawada ku qarxinayaan. dowladda waxa ay haysatay 2 beri si ay muwaadiniintaas u badbaadiso. mar kale diyaaradda waxa ay ka duushay garoonka Bahrain ayadoo gaartay Dubai abaar 3:24 daqiiqo ah, waxaana lagu amray inaysan soo degi karin ilaa amar dambe. shidaalka oo ku yaraa awgeed qadar yar kadib waa ay soo degtay diyaaraddii, waxaana loo ogolaaday inay soo caga dhigato. taariikhda waa 14 Oktoobar. muddo 16 saacadood ah ayaa laga joogaa xilligii la afduubtay. baahi iyo rafaad badan kadib waxa ay dalbadeen in loo keeno cunno, meeshana kama maqna dalabkoodii sii deynta maxaabiista. Janashla Ishmid waxa uu wargeliyay Finishki in uu Dubai u ambabaxo siina qaata 4 milyan oo kaash ah, waxaana safarka ku weheliyay 31 ciidanka GSG9. waxayna soo qaateen diyaaradda 70 X-ray. Dubai ayay soo gaareen abaar 5:15 daqiiqo ah. Finishki waxa uu wada xaajood kula jiray afduubayaasha, wax natiijo ahna kama soo bixin. xilli ay diyaaradda afduubneed 2 maalin, Akaashe waxa uu maxaabiista ku wargeliyay qofkii isku daya dhaqdhaqaaq inuu naftiisa khatar gelinayo. Dowliye Schumann ayaa ku dhiiraday in dowladdiisu uu gudbiyo dalabkiisa, waxa uuna u dhacay sida tan. nolosha 91 qof oo rag iyo dumar isugu jira ayaa diyaaradda saaran. rajada kaliya aan leenahay waa adinka. abaar 1:50 daqiiqo Finishki waxa uu wada hadal la sameeyay wasiirka difaaca Imaaraadka Mohammed bin Rashid, asagoo ka codsaday in howlgalkooda ka fushado maadaama dhulkiisa la joogo si uu u badbaadiyo muwaadiniinta Germany. dalabka cunnada iyo biyaha iskugu jira ayaa la gaarsiiyay. wada hadalka Finishki iyo Akaashe waxa uu muuqday waqti lumis. waxaa la soo gaaray 9 subaxnimo maalinta Axadda, taariikhduna tahay 16 Oktoobar, taas oo lagu balansanaa haddii dalabkooda la fulin waayo in diyaaradda la qarxin doono, balse waxba ma dhicin. abaar 2:19 daqiiqo ah 16 Oktoobar mar kale ayaa cagaha laabatay diyaaraddii 181 ayadoo ku sii wajahan dalka Cumaan, balse uma ogolaan inay halkaas caga dhigato. isla xilligaas waxay ka dhuntay taawarada diyaaradaha laga hago. mar kale ayaa ka soo muuqata diyaaradda 181 dalka Yemen, waxayna caga dhigatay garoonka Cadan. abaar 9:55 daqiiqo ah Finishki iyo tiimkiisa GSG9 marka ay ka war heleen in diyaaraddii 181 inay caga dhigatay dalka Yemen, waxa ay u soo jihaysteen dalka Yemen, balse looma ogolaan
inay ka soo degaan waxayna u jihaysteen dalka Sacuudi Carabiga ayagoo caga dhigtay Jidda diyaaradii oo degitaankeeda badatay duuliye Schumann waxa uu u sheegay in taayarada ay wax soo gaareen ee khatar ku jirto diyaaradda waxaana loo ogolaaday inuu soo hubiyo marka uu soo laabtay Akaji ayaa ku eedeeyay Schumann inuu isku dayay inuu baxsado taas oo sababtay in dadku hortiisa madaxa looga doogto dabadeedna diyaaradda ayaa laga soo tuuray markani waxaa dhacay dilkii ugu horeeyay ilaa markii la soo afduubtay diyaaradda duuliyihii labaad Yogan Fita ayaa lagu qasbay inuu diyaaradda u jiheeyo Soomaaliya 17 Oktoobar 8 galabnimo ayay garoonka Cadan ka soo duushay waxayna cagaha soo dhigatay garoonka Muqdisho 4 galabnimo iyo qadar 35 daqiiqo ah Ishmid ayaa la soo xiriiray madaxweyne Siyaad Bare si loogu ogolaado inuu howlgalkiisa ka fushado Muqdisho wada hadal dheer kadib waa loo ogolaaday dhammaan askartii Germany iyo ururka GSG9 waxay iskugu imaadeen Muqdisho Akaje waxa uu taawarka Muqdisho u mariyay warbixin haddii maxaabiista la soo deyn waayo 7 saacadood gudahood inuu diyaaradda qarxinayo GSG9 oo waqtigu uu aad ugu yar yahay ayaa damiyay dhammaan leerarka garoonka Muqdisho waxaana xigay in diyaaradda horteeda qarax weyn uu ka dhaco dabadeedna ay gudaha u galaan askarta GSG9 ayna halkaas ku soo afjaraan afduubayaashii halkaas ayuuna howlgalkaas ku dhamaaday